بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن هبه wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno xaaladihii ugu dambeeyay bariga dhexe ee arrimo kale oo caalamka ah qodobadan caawa barnaamijka idinku haynana waxaa kamid ah madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi oo markii ugu horeysay si furan uga hadlay suurtagalnimada dagaal dalkiisa uu la galo Israel iyo xaaladda dagaalka ee Gaza haddaba muxuu uga dhigan yahay hadalka Sisi filashadii laga qabay dagaal ka dhex qarxa Masar iyo Israel maadaama labaduba ay yihiin dalalka taageerada ka hela Mareykanka ma suurtagal baa in Washington ay ku lug leedahay mowqifkan cusub ee madaxweynaha Masar macluumaad ku aadan arrimahan ayaan idin haynaa sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa go'doonka Israel oo sii siyaaday kadib markii khudbadii Netanyahu ee golaha guud ee qaramada midoobay looga kala dareeray hoolka xaaladdu way ku xun tahay oo waxa ay lumisay taageerada xulafo muhiim ahayd arrintan oo warbaahinta Israel ay ka hadlayso kuna sheegtay muuqaal cad oo jawaab u ah wajiga xiga ee Israel ayaan barnaamijka idinkugu haynaa waxaan kaloo barnaamijka ku eegaynaa caawa xogayaha difaaca ee Mareykanka uu amray in generaalada iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada ay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo ay soo galaan Washington haddaba maxay tahay sababtu Mareykanka ma dagaal ayuu isku diyaarinayaa maxaase laga ogyahay qorshahan yana faahfaahin ayaan idinkaga haynaa mar kale habeen wanaagsan aynu warbixinta ugu horeysa ee barnaamijka caawa jaleecno go'doonka Israel ee siyaasadeed ayaa sii siyaaday kadib markii Netanyahu khudbadii uu ka jeedinayay golaha guud ee qaramada midoobay looga kala dareeray hoolkii khudbadu ay ka socotay warbaahinta Israel oo ka warqabtay falcelinta caalamiga ah ee khudbadii ra'iisul wasaaraha uu ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa ay haatan xustay in bixitaanka wakiilada dalal dhowr ah oo ka baxay hoolka shirarka markii Netanyahu uu istaagay khudbada ay tahay muuqaal ka turjumaya ama xitaa muujinaya go'doominta sii kordhaysay Israel ku wajahayso masraxyada diblomaasiyadda iyadoona dhawaan lumisay qaar ka mid ah xulafadii daacadda u ahayd ee u dhaweyd telefishinka kanaalka 13aad ee Israel laga leeyahay ayaa u arkay muuqaalkan inuu ahaa diidmo ballaaran oo aan horey loo arag oo laga muujiyay dhageysiga hadallada Israel marka loo eego sanadkii hore iyadoona loo arko waxa dhacay inay u dhiganto heerka mudaharaadka caalamiga ah ee ka dhanka siyaasadaha xukuumadda Israel halka kanaalka 24aad ee Israelna uu arkay in ka bixitaanka ergada hoolka ay tahay isla markaana ay tahay in Netanyahu uu soo galay calaamad xoogan oo ay muujinaysana ka bixitaanka dadkaasi diidmada xoogan ee loo qabo mowqifyada Netanyahu ee ku wajahan Gaza saxafi ka tirsan kanaalka 12aad ayaa dhankiisa xaqiijiyay in bixitaankan ballaaran ee xilliga khudbadda uu ahaa fariin siyaasadeed oo cad oo la dirayo isagoona xusay Netanyahu weligiis uusan la kulmin xaalad sidan oo kala ah taasi oo falanqayaashu ay u arkeen cadeymo dheeraad ah oo muujinaya in caalamku dhabarka uu markan soo xijiyay Israel isla markaana uu ka sii fogaanayo caalamka falanqayaha ka tirsan kanaalka 13aad ayaa dhankiisa waxa uu adkeeyay in muuqaalkani uu aanu kaliya ahayn fasiraad maadaama uu soo koobayo mowqifka caalamiga ah ee laga qabo diidmada Israel halka telefishinka kanaalka 11aadna isna uu iftiimiyay in madaxa wararka caalamiga ah ee ugu muuqday inaysan ahayn nuxurka khudbadda balse ay kaliya tahay muuqaalka isu soo baxa wadajirka ah ee ka sareeyay khudbadda jawiga khudbadda markii loo fiiriyo waryaha siyaasadda ee kanaalka 12aad ayaa nuxurka khudbadda waxa uu ku tilmaamay khudbad dagaal oo sii xoojinaysa sii wadida weerarada Gaza isagoona sheegay inaysan lahayn rajo iyo sidoo kale xal siyaasadeed isla markaana waxa uu tilmaamay ama uu ku tilmaamay khudbaddaasi jahwareer Netanyahu ee u bilowday iyo sidoo kale qaladaadka la yaabka lahaa ee xaaladahan uu ka soo wajahay taasi oo aan inaba caadi ahayn sida uu qabo waryahaasi dhanka kalena Lian Folik David oo ka tirsan isbahaysiga amniga gobolka ayaa waxay sheegtay in Netanyahu isku dayay inuu khudbadiisa xasuus uu ku soo bandhigo qababka qaar laakiin waxay u aragtay khudbadda mid ka maran runta iyo sidoo kale waxyaabo macno leh oo dadka lagu qanciyo iyadoona xoogga saaraysa in xalka uu ku jiro gaarista heshiis ku saabsan maxaabiis isweydaarsiga iyo sidoo kale soo celinta kuwii la afduubtay la taliyaha istiraatiijiyadeed Ronen Tazor ayaa hoos u dhigay baaqi Netanyahu ee ku aadanaa dadka la afduubtay isagoona sheegay in khudbadiisu aysan lahayn wax daacadnimo ah maadaama uusan la kulmin xaqiiqada ah in xaaladaha isbahaysigii xukuma
ay ka hor istaageen inuu gaaro heshiis lagu sii dayn lahaa maxaabiista isaguna mudnaantaas ee xisbigooda ka hormariyay masiirka dadka la haysto ee ku xiran Gaza. wasiir hore oo Israa'iili ah ayaa waxa uu ku eedeeyay Netanyahu in beenta uu u sheegay qoysaska dadka la afduubtay isagoona sheegay wasiirkaasi in hadaladiisu aysan wax saameyn ah ku yeelanayn iyaga 2 sano kadib markii wiilashooda la xiray iyaduna intaasi ku daray in khudbadiisa kaliya ay ka turjumayso sii socoshada dhibaatada ay keentay in Israa'iil ay gaarto xaalad aad u liidata oo adag dunidan ka sii fogeysay. waxaa carabka ku adkeeyay Netanyahu uusan ka labanlabayn inuu ka faa'iideysto madasha qaramada midoobay si uu u soo diro fariimo marqaati ah oo waxba kama jiraan ah iyadoona tilmaamay in waxa gudaha iyo sidoo kale dibadda Israa'iil ka sugaya ay yihiin kuwa aad u khatar badan taasi oo ka dhigaysa go'doominta Tel Aviv mid sii qoto dheeraata kadib khudbad kasta oo sidani oo kale ah oo laga jeediyo masraxyada caalamiga ah. waa tahay markana aynu jaleecno dhanka Mareykanka xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa waxa uu amray in generaalada iyo sidoo kale saraakiisha sarsare ee ciidamada Mareykanka ay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo ay soo galaan gudaha magaalada Washington. haddaba maxay tahay sababta la isugu yeeray saraakiisha iyo sidoo kale ciidamada sarsare ee Mareykanka? warbixin gaar ah oo ay qoreen 5 saxafi oo ka tirsan wargeyska The Washington Post ayaa wargeysku waxa uu ku sheegay in xogayu amray boqolaal generaal iyo hoggaanka sare ee ciidamada badda inay ka yimaadaan dacallada dunida oo ay soo xaadiraan hadal kooban oo u jeedin doono heerarka military iyo soo imaatinka loogu magac daray ruuxa dagaalyahanka sida ay sheegeen ila dhowr ah oo arrintan xogogaal u ah. inta hore ee toddobaadkan Pete Hegseth waxa uu dadka leh darajada generaalka guud ama taliya qaybadyada ciidamada badda iyo wixii ka sareeyay sidoo kale taliyayaasha sare ee saraakiishan qornayn ka codsaday inay ku soo xaadiraan jaamacadda ciidamada badda ee Quantico ee ku taala Virginia maalinta Talaadada ah. hadafku waa in wada hadalku noqdo foolka fool ayuu yiri qof arrimaha socdaalka ku baraarugsan waxaana doonayaa inuu generaalada ee iskii u arko taasi oo ku xigta eriyad aan la xaqiijin oo saameyn doonta qaar ka mid ah saraakiisha militariga ee sare taasi oo burburisay dhaqanka military isla markaana ku abuureysa jawi cabsi ah gudaha Pentagonka waxa uu diiday inuu faahfaahiyo ujeedada kulanka ama jadwalkiisa mana uusan uga jawaabin su'aalaha ku saabsan khudbadda Pete Hegseth si toos ah balse afhayeenka Pentagonka Sean Berlin ayaa kuna xaqiijiyay bayaan in Hegseth uu la hadli doono taliyayaasha military ee sare sida ugu dhaqsiyaha badan isbuuca soo socda. qaar ka mid ah saraakiisha Pentagonka ayaa su'aal galiyay suurtagalnimada ah in la isku keeno tiro badan oo taliyayaal ah si ay u maqlaan khudbad laga yaabo inaysan ka badnayn daqiiqado waxayna ka xumaadeen fikradda ah in taliyayaasha military ee waayo aragnimada leh oo qaar ka mid ah sanado ku qaatay goobaha dagaalka ugu baahdo xaadiritaanka khudbad ku saabsan sida loo dagaalamo. Pete Hegseth oo si qoto dheer uga jawaabaya walaacyada ku saabsan kulanka markii generaalka howlgabka ah ee Ben Hodges uu Twitterka ku qoray in generaalada Jarmalka isugu yeeray kulan lama filaan ah sanadkii 1935 laguna qasbay inay u qaataan dhaarta ciidamada ee daacadnimada ah ee Wagnerka loo yaqaano taasi oo Hegseth si maadeysan uga jawaabay kuna tilmaamay sheeko weyn oo generaal erayadii dhawaan iyo sidoo kale go'aanka aan caadiga ahayn ee lagu qabanayo kulanka ayaa kor u qaaday walaac baahsan oo ka dhex abuurmay saraakiisha military iyadoona Pete Hegseth laga yaabo inuu ku dhawaaqo go'aamo lama filaan ah oo dheeraad ah maadaama uu horey u soo bandhigay qorshayaal lagu mideynayo amarada dagaalka iyo sidoo kale dhimista tirada generaalada iyo hoggaanka ciidamada badda ilaa 20% waxaana tirada taliyayaasha military ee darajada generaalka guud iyo wixii ka sareeyaba lagu qiyaasaa inay haatan yihiin ilaa ku dhawaad 800 oo askari. kaaliyaasha Kongareesku waxay Khamiistii isku dayeen inay fahmaan sababta casuumaadda loo sameeyay balse waxay ka heleen macluumaad yar Pentagonka sidaas darteedna Senator Tammy Duckworth ayaa raadinaysa inay warqad u dirto Pete Hegseth taasi oo kor u qaadaysa walaacyada ku saabsan qarashyada iyo sidoo kale khataraha amniga qaran natiijada dib u yeeritaanka lama filaanka ah ee taliyayaasha military. senatoradu waxa ay bilowday inay faafiso warqad lagu codsanayo warbixin ka timid Pentagonka ka hor Talaadada si ay saaxiibada dimuqraadiyiinta ah ula wadaagto iyada oo filaysa in kuwa kale ay ku soo biiraan halka qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Kongareskuna ay ka fogaadeen inay si dadban uga hadlaan qorsheynta kulankan.
khudbadda talaadada waxaa la filayaa inay noqoto mid ka mid ah 3 khudbadood oo gaagaaban oo Pete Heges jeedin doono sida ay sheegeen 2 ilo maxalli ah. Midda labaad ayaa ku saabsan salka warshadaha difaaca ee Mareykanka. Tan saddexaadna waxay ku saabsan tahay waxa loogu magac daray karantiina oo loo qorsheeyay madasha difaaca qaranka ee Reagan ee California bisha December ee soo socota. waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socotaa sheekada ku aadan madaxweynaha Masar oo markii ugu horeysay si cad uga hadlay walaaca ku aadan dagaal ay la galaan Israel iyo sidoo kale xaaladda dagaalka ee Gaza. Markan aynu sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka u talaabno. madaxweynaha Masar Cabdilfataax al-Siisi ayaa markii ugu horeysay waxa uu si furan uga hadlay dagaalka Gaza isagoona xusay in Masar ay ka qayb qaadanin ee ciriiriga ama sidoo kale xanibaadda go'doon ee Gaza saaran iyo sidoo kale in gelitaanka gargaarka uu u baahan yahay ogolaansho laga helo Israel taasi oo gacanta ku haysa xuduudda Rafah. markii ugu horeysay Sisi ayaa sida la tilmaamay si daacad ah oo degan uga jawaabay su'aalo adag iyo sidoo kale eedayn Masar ee dusha looga tuuray waxaana uu ku tilmaamay eedeymahaasi been abuur iyo sidoo kale warar xun oo saameyn ku yeeshay doorka Masar ee muddadii la soo dhaafay sida ka qayb qaadashada xayiraadda Gaza iyo in Masar ay dagaal u galayso sababta dhacdooyinka ka socda marinka Gaza. intii uu booqasho ku joogay xarunta akademiyadda militariga Sisi ayaa sheegay in Masar aysan ka qayb qaadan xanibaadda Gaza iyo in 365 kilomitir oo Gaza ah ay Masar ku dhowdahay oo kaliya ilaa 14 kilomitir isla markaana ay ku taalo badda iyo inay leedahay dekado dhowr ah oo Israa'iil ku xiran iyadoona hal dekado oo kaliya ay u dhowdahay Masar oo xadka Rafah kaasi oo loogu talagalay gaadiidka iyo shakhsiyaadka sidoo kalena xadka Makram Abu Salam kaasi oo isku xira Masar iyo dhanka Gaza ee Israa'iil ay haysato. waxa uu tilmaamay in Masar ay hore ugu dhawaaqday in ka badan sanad ka hor Israa'iil ay qabsatay marinka Saalixudiin taasi oo ah xadgudub ku saabsan heshiiska u dhexeeya labada dal maadaama loo qoondeeyay in awoodaha militariga aysan gaari karin aagani ku xiran ayuu yiri isagoo intaasina ku daray in joogitaanka ciidamada Israa'iil ee wadada Philadelphia ama Saalixudiin ay gebi ahaanba xirayso jidka loo maro dhanka Rafah haddii aan doonayno inaan gargaarka Gaza la geliyo ee dhanka Masarna laga geliyo waa in loo ogolaado inuu maro dhulka Falastiiniyiinta laakiin dhinaca kale waxaa jooga ciidamada Israa'iil. waxa uu intaasi ku daray madaxweynuhu in Masar ay 4 jeer dib u hagaajisay xadka kadib markii ay burburisay dhinaca Israa'iil si uu ugu habboonaado shaqada balse gudbinta gargaarka waxay u baahan tahay in isku dabarid lala yeesho Israa'iil mana lagu geli karo si xoog ah ayuu yiri isagoona tilmaamay in qaar ka mid ah dalabaadka sheegaya inay xadka qabsadaan oo gargaarka xoog ay ku geliyaan ay u baahan tahay tallaabo military oo la qaado isagoona sidoo kale su'aalo geliya arrinkaasi ayuu yiri Masar loogama baahna inay gasho dagaal natiijadiisu noqonayso xaaladda Gaza anigu waxaan mas'uul ka ahay Masariyiinta amnigooda iyo badbaadintooda mana qaadayo mowqifyo iyo sidoo kale tallaabooyin dhalinaya waxyeelo dowladeed haddii aan lagu qasbin. waxa uu sii raaciyay hadalkiisa anagu kaliya nafteena ayaan difaacnaa mana weerarno cid kale Masar miyaa looga baahan yahay inay weerarto Israa'iil maya kaliya waxaan difaacaynaa nafteena. Sisi ayaa xusay in dhinaca Israa'iil ay waajib ku tahay inay ogolaato gelitaanka gargaarka ee marinka Gaza isagoona intaasi ku daray in xaaladda xadka Rafah ka hor weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii 2023 ay hoos imaan jirtay heshiiskii 2005 oo heshiisku u dhigayo in la maamulo dhulka Falastiiniyiinta ayna maamulaan maamulka Falastiin midowga Yurub iyo sidoo kale Masar balse sanado kadib markii Xamaas ay la wareegtay maamulkii Gaza xadka ayaa ku sii jiray gacanta ururkaasi waxaana halala kaashan jiray Masar balse hadda uu gacanta u galay Israa'iil waa inay ogolaato ayuu yiri gelitaanka gargaarka waliba si shuruud la'aan ah. waxa uu sharaxay in weerarista Masar iyo eedeynta xanibaadda Gaza ay ku salaysan tahay in loo furo fariin qaldan oo ku saabsan arrinta Falastiin balse Masariyiintu waa inay feejignaadaan oo ay gudbiyaan sheekadan saxda ah ayuu hadalkiisa sii raaciyay isagoo gabagabadiina adkeeyay in dalabaadka Masar ee gelinta gargaarka ay yihiin kuwa aan dhammaanaynin ujeedadooduna ay tahay in gargaarka la gaarsiiyo dadka ku nool marinka Gaza oo la yareeyo dhibaatooyinka ay wajahayaan balse waxa uu yiri anagu ma galayno dagaal cid kale nooga xumaanayso isagoo sheegay in ay naxadin iyo sidoo kale murugo ay ka qabaan waxa haatan ka dhacaya Gaza laakiin aysan ku wajahaynin wax walba dagaal ay la galaan waliba Israa'iil.